السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة وذا عشر كيان صدحات مايكروسوفت SQL Server 2014. عشر كان وحين كبراني الناس اللي ديليت كرايو database أما بالتيبل كاسودون سنة ماشي كسارتو كبيهان بقى هدبا waxaa kala jira laba nooc oo kala yiraahdo syntax iyo query oo badan ardayda isku qaldaan. Syntax maaha query oo live loo qorayo waa sidii query u qormay oo tusaale ahaan syntax aan laga sii qorayo iyo query oo ah keywordkii laftirkiisa wax lagu delete gareeyay. Haddaba haddii aynu islaagno syntax oo kale, syntax sidan ayuu u qormayaa. waxaad oranaysaa marka doonaysaa inaad delete gareyso database kan horta waa inuu jiraa oo uu ku dhex jiraa database sideeda faraha badan ee aad diyaarsatay. kadib waxaad qoraysaa markaad ku delete gareynayso query ahaan ay ku delete gareynaysaa syntaxkeeda waa kan. waxaad qoraysaa drop kadibna waxaad qoraysaa database name kan sidiisana qormaysid, laakiin si database ka doonaysan delete gareyso magaciisa halka ku qoraysaa. sidaas la mid ah table ka aad doonayso inaad delete gareyso magaciisa halka ku qoraysaa. tusaale ahaan imika query oo kale markaan sidan niri ama code imika waxaad tiriba drop iga delete garee oo meesha ka tuur database aniga tuur baad leedahay kaasoo la yiraahdo qolcday. drop baad leedahay haddana iga delete garee table magaciisa la yiraahdo xaabaale. kan ayaa koorkii ah oo macnaheedu waxaad sheegtay imika table-ka magaciisa waxaa leh database-ka magaciisana waa qolcday. sidoo kale aad kala sheegtay labadii magac ee ay lahaayeen labadani database-kiina hay tolay table-ka. haddaba say tahay si practically ah aynu guda galno casharkeeni oo aynu soo furano Microsoft SQL Server 2014 Management Studio. aynu tagno xaggan Object Explorer-ka, aynu sii tagno halkan database-ka. laba siyaabood ayaa jirta. haddaba imika mar lama delete gareyn karo imika bilmatalan haddii aan kan kala ku tuso oo istiraahdo table-ladan mid ka mid ah delete garee car ama order ama tape saddexdan mid ka mid haddaad isla delete garee kuma delete samayo because of waxaa jira relational integrity ayaa jira meesha oo way isku xidhan yihiin saddexdooduba. orderka iyo tape-ka iyo car-ka saddexduba isku xidhan yihiin oo foreign-ka iyo primary-ka isku xidhan yihiin. sidoo kale in loo kala furfurto mooyaane delete gareyn kari maysid. kuwaasna waa aynu dhigan doonaa insha Allah mustaqbalka casharradeena soo socdayna ku baran doonaa hadii la yiraahdo. balse maanta waxaynu doonaynaa inaynu delete gareyno table iyo database. haddaba sida ay tahay imika waxaan doonaynaa marka hore inaynu ku delete gareyno sidii caadadeena ahayd manually, kadibna by query ayaan ku delete gareynaa ama code. sida tahay imika haddaan tan expand yiraahdo database proto aan kan expand ku dhufto kadib aan table-kiisa si furo waxa baro ay ku dhex jiraan. imika table-kan aynu right click niraahdo kadibna delete kadib button form kan ayaa ku soo baxaya. waxaad ku dhufanaysaa button kan okay executed waa uu ka saaray meesha kuma jiro almost table-kii wala delete gareey. as well as sidaas la mid ah waxa aynu doonaynaa inaynu database-keena totally meesha ka tirtirno kadibna right click baanu leenahay isagana sidaas la mid ah waxaan tegnaa delete. sidoo kale form kan ayaa soo baxaya button kan okay baan isagana iga delete garay kadib ahaanba database-kaas isagana sidaas la mid ah meesha waa ka baxay. sida wali ku delete gareyn karaa haddaba aynu imika isku dayno inaynu ku delete gareyno code isagoo ah query la qorayo kadibna new query aan soo furano halkan aynu nimaado. imika waxaynu doonaynaa inaynu delete gareyno table-ladeeni ku jiray pro database ee casharradeena ka mid ahaa kuwaas aynu hore soo sameynay Hargeysa iyo Soomaali labadan mid ka mid ah aynu saarayna. waxaynu qoraynaa sida aynu xagga hore ee syntax-kii query ku soo sheegnay. waxaad qoraysaa ereyga drop kadibna waxaad qoraysaa table
kadib waxaad ku xigsiinaysaa table-ka magaciisa imika Soomaali weyn leenahay iga saar Soomaali sida time-ka khad cas ayaa hoosta ka marsan sababtoo oo ah halkan database-ga waxaa ku dooran court management system table-keenina waxa uu ku sii dhex jiraa pro database sida ay tahay waa inaan halkan pro database ka soo doorano oo kan ah sida haddaba ay tahay waa inaan highlight saarnaa because of imika casaanka uu ka qaadno sababtoo ah almost waxa uu ka tirsan yahay pro database sida ay tahay aynu highlight nidhaahno kadibna aynu execute nidhaahno waxa ku leeyahay command completed successfully markuu uu execute successfully adigu almost waa u dhilisay table-ka balse halkan wuu ku sii jiraa sababtu waa maxay runtii sideen caadi ahayd waa inaan refresh siinaa si uu la qabsado almost table-kii waa u delete garoobay sidaa ay tahay halkan aynu hadana tagaynaa waxa aynu doonaynaa in aynu delete garayno database jirti imika kale waxaynu delete garaynaynaa bilmatalan database sida halkan ku jira oo kale majaliyo waxaan doonayaa inuu database-kan iska delete garayno xamsaliya la yiraahdo xamsaliyo aynu delete garaynaynaa simple magaciisa right click baan odhan karnaa copy xaggan nimanana waxaan halkan ku qoraynaa drop database la yiraahdo xamsaliyo kaasina qoraynaa kadib highlight baynu leenahay buttonka waxaynu riixinaa F5 oo ah isaga la tirso execute kadib waxaan soo saaray isaguna command completed successful query executed successful totally meesha uu ka baxay laakiin halkan uu ku sii jiraa sababtoo maxay waxa uu doonayaa database-kan in refresh la siiyo isaguna gabi ahaan database-kan refresh siinayna totally xamsaliyo oo halkan ku jiray kuma jiray marka waa u delete garoobay runtii sidaas ayaan lagu delete gareeyaa database iyo table jiray imika xamsaliyo oo kale table la ku sii dhex jiray totally soo wada baxay marka database-ka wada saarto casharkeena yar ee gaaban halka ayaynu ku joojinaynaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullahi